mudan madaxweyne markii labaad ayaa xafiiska lagu doortay. sidee dareemaysaa muxuu yahay qorshahaaga 100 maalmood ee ugu horeeya markaad xilka la wareegto? 100 maalmood ugu horeyso dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqan gelino waxa aan damacsanahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-goodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno 100 maalmood ugu horeyso dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baas gareyn doonaa. 100 maalmood ugu horeyso waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabayno arrintii deyn cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxba ka dhiman yar. waxaan rabnaa 100 maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadoodii aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structure-kooda inaan reform gareyno oo la federalize gareeyo lagu apply gareeyo nidaamka federaalka. hay-adaheena inta badan weli waxay u dhisayeen qaabkii dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd. waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaaleynayo arrimaha muhiimka ah. magaalada waa kala xiran tahay biro dhagxaan ayaa lagu kala xiray cabsi badanna waa ay jirtaa arrimaha amniga muhiimad intee leeg ayaa siinaysaa? magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinana amniga muqdisho dhexdiisa leh kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheedana intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhaweynaynaa. waxaa lagugu soo doortay nidaamka 4 iyo barka xildhibaanadana sidoo kale ayaa lagu soo doortay beelahooda keensaday kuma imaanin nidaam sanduuq iyo warqad ah. dowladihii adiga taadii iyo tii madaxweynihii ka dambeeyay intaba waa suura gelin waayeen in la sameeyo qaab loogu gudbo doorasho qof iyo cod ah. maxaad ka bedelaysaa nidaamka hadda wax lagu doorto ee 4 iyo barka ah oo dad badan ay u arkaan mid waqtigiisa uu dhamaaday xalna aanan ahayn? safarkii hore markaan xukunka ka degay aan ku wareejiyay dowladda cusub ee madaxweynaha la doortay iyo dowladda cusbeeday waxaan ku wareejiyay waxa kamid ahayd qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo 4.5 qorshihii lama dhaqan gelinin sababo badan awgood wuu yaalaa weli kii oo aan dib u eegis ku sameeyna ayaan dhaqan gelin doonaa. dadka Soomaaliyeed ma jeclin in nidaamka hadda sida wax u dhaceen doorashada dadban iyo 4.5 oo khilaafka meerana inuu ku soo noqdo ma jeclin. haddii alla yiraahdo 2016 markuu termkeena dhamaanayo nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha Allah. Soomaaliya waxyaabaha caqabada ku ah waxaa kamid ah isbedelka lagu sameeyo ra'iisul wasaarayaasha oo xukuumadihii dalka isaga dambeeyay dhan la arkaayo in ra'iisul wasaare la bedelayo waqti badanna waa uu ku dhumaa iyo qarash badan. way aragnimadaadii hore adigu 3 ra'iisul wasaare ayaa dowladdaadii soo martay 4 sano hadda lagu doortay maxaad ka bedelaysaa arrintaasi oo aad ka korsatay isbedelada ra'iisul wasaaraha ee dowladdaadii hore? horta problemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra'iisul wasaaraha isqabsanaya ma aha problemkeena waa problem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqeyn lahayaa 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jirin ama 2 ra'iisul wasaare hal la bedelo ama 3 ra'iisul wasaare hal la bedelo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare inta isla bilaab isla dhameey taariikhdu ma ayan dhicin. marka issue-ga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa wax dib u eegis u baahan inaan parliamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaan laakiin nidaamkan hybridka feere nima la doortay aniga habeen hore la doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka Soomaaliyeed ayaa la doortay hadda ra'iisul wasaare magacaabaya caawa niman la garanin oo gurigiisa iska joogo oo isagu la sidiisa aan ogeyn inuu ra'iisul wasaare noqonayo in kale ayaa biriso wixii laga yaabaa inaan ra'iisul wasaare ama usbuuc dambe ma bisha dambe aan ra'iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu galayaan. xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka hawl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra'iisul wasaaraha kaliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiska ku soo dhamaadaan dadka Soomaaliyeed madaxweynaha dayayaan mas'uuliyadana asiga saarayaan. marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed in lagala hadlo lagana doodo la furo oo la hagaajiyo hadii la yiraahdo.